koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan dalka madaniyo humaaga tarinaya hawsha malaweeheedhaylalamay hadaadidayoolodila meerayso waxaan leeyahay maanta ila meeraysadii muuse way soo dhammaanaysa ila meeraysadii way soo dhammaanaysa la isla meeraysan maayo aan ku bilaabo salaanta islaamka kuguna salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawade si aanan noola meeraysan subscribe sidoo kale si aanan anaguna kula meeraysan like-ta ha nagala masuugin ku soo dhawow YouTube channelkeenani si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar channelkan nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatid war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ima weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar musafadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay low waranagu horanu goonee aqoonsigan doonina adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaa adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kalamaane oo duceeyay allay leedahay waryaada kalamaane anigu waxaan dhihi lahaa shimaal geedigoo aaday iyo meel shinliqi taallo oo shilinta laga guuray iyo shabahda jiilaalka dibu socodka shiidaadda iyo shagarka doonaya shafka wuxuu ku hayaa inuu qaranku shiidaaye baloo lagu shakaal waa midaan sheexna garanayne waxba shiiquna iyo hadhihin owga shaalka lehe shimbiruhuba goodkii shuq gala way ku shirayaane ha shareerin shaaraashaflihi waa sharku u dadane yaa shamaala يا شمالة يا شمالة يا شرقدبا شيطان حجابا ورد هذا شيء سنتهي دور الشدة عندنا شيلين كيس ودني وحبا كمان نقول إيه على عالكنا قال تجنيه أريا ما خلا سعطة ما سوى سلا سعطة هذا دور شرب تكيل العقل هو كوي بمقلن مية إنت أنا وياوي مركز وحنا مقلا قدوميها بارلمانكا دقيلي مريف على أسكالها مقلا مركز أنا وحنا آد والله بنا دقيل أو قدوميها إلا حد إلا وسار ويسنيا ورلن يا ونوك يوني أوكي دالي نسكال دويدا دقيلو مريف لي يلاري إنت أنا وحكلا ليابي دورش برابر وقبل دوهايو مركز محلو ديدي war walla weynay qoladan maanta idinku soo biirtay xagee ka timid war ma haysiine federaal markii Soomaalida loo keenayay in lagu kala qaybiyo la rabay dadkii Soomaalida in lagu kala qaybiyo horkacayna Itoobiya u horeysay Kenyana waa lagu ansixiyay shirkii Mbagati laakiin federaal fidnadiisii iyo kala qaybsankiisii Itoobiya ka onkoday maanta nin walba waxaad falata filo miya Itoobiya ku dhacday war dee dhamay baa ka dhacday warna miya wiligiina dhama hoosan falaasana lamadi ebeesa shal goosata haliin koona ludfiya uma aagna war anigu waxaan dhihi lahaa federaalka falan iyo markaan fadalka jaan raacnay fiitada iyo dhulaxdii ayaa sii fataaxsaday fashilkii midnimada kolka buuga loo furay الله وافلاي مدبن إثيوبيا واتري هنا باتكوشاشا ما أنت إيداي هاي ستا فترة الأكبرسو hambadka haa waxa dhaa hindi waayneeyo war hanala waalalnine gobolkii Tigray waxay dhayn dawladda federaalka waqtigeedii waa dhamaaday Abiy Ahmedna nama xukumi karo maanta kadib sababtoo ah sharci kuma dhisna warna miyaa ma ilaahay dubigi gaas iyo mareero dhawi Elisa Lankudigi Abiy Ahmed hadii la daba gobsadii niman badan oo saaxiibayaal jeel raadiyo la garooga is jiraan warna khilaaf nagu cusbay warka naga dhageyso ismaamulka Tigray wuxuu noqday Puntland Ethiopia hayahe Puntland ma Tigrayda Soomaaliya naqahe mugaas ujeedida saaxiibkaygiyo warnimayo madaxweynaha dawlad goboleedka Tigrayga waxa la yiraahdaa Deputation Gabriel Mikael madaxweynaha Puntland waxa la
yidhaah saciid cabdulaahi deni waxayna isaga mid yihiin ad adayga iyo khilaafka dowladda dhexe war midkoodna wax ma been labaduba waxay yidhaahdeen doorashada wakhtigeeda ha lagu qabto waryaa doorashada xilligeeda ha lagu qabto waxa dowladda federaalka dhibaa soo maaha seed ku leedahay waxma been warnamiyow diidi imi diidnaba diidow magaaga u wala eri wili jaba joogjoogka gureena doorashada ay waqti jolan gudbiina war Puntland iyo Tigray waxay iskiga mid yihiin u yeerashada beesha caalamka hinda Puntland tumun jeer waxay sheegtay anagu waa go'eena haddii qalataan la joojinin Tigrayna waxay tiri anaguna waa go'eena haddii qalataan la joojinin dee labaduba Soomaaliland bay ku daysanayaanoo waan soo dhaweynaynaa warwar ma haysiine abwaan Mustafa Dembil wuxuu yiri jacbur iyo waxaan tirin ogaa gabayo jiilaale gugan maanta waxaan jeexayaa dhowr jid oo kale raggii gabayga inaan joojiyoon jarayba moodayay jidka fura waxaan soo wadaa maanso jaan rogane jacburkaygu wuxuu daaran yahay 100 jawaaboode ha yeeshee badbaan jaraha kale jaalla soo qubiye afartaas araar jalaqsan iyo jaantus iyo buugdhe nin jikaarka uun lagu yaqaan maalin buu jabiye qof ku jecel haddaad maya tiraa waa jawaab fudude isna hadalku maba joojiyo kaama jiifsado sida jiir caroodu dacwado jeelka kuu dhigiye janankii warkaas gaarayba waaran kuu jariye isjejabinta inaad aamintaa waa xarago jaane jilbahay dharkii wada jareen jiilka maanta achaba ashaq ya chalale sarwal dabago ya chalale warnamiyow sheekisiin hayo dhagansada hato ka hora lantuug lama qofood iska bulo walnan haysana mankanka gali madus manki baare wala usaka waay ya may aragay loor badarka jiro meel tirsno iyo haftiyo dhuhul iyo ka karsadan waayeen markaas may saray loor kun koy walka furoy hatan guriga ka nagaday loorki wal iska furdo hawaay may saray shaatiga koy ka shiboy shaati jeele bahay loorki hoos dhiki loorki furow nagadi lan usaba gaaji luhun duru waayay madaas ba hoos ka jeedi mad isguruga fatashay ya tartiib ko hibiga eri shaatigi uskoy wala ka shiboy lahaaya ka hoos gaad intii loorka furow madaas barkadi tii kale lanki dinije jeefiya kahi ma eray guruun shangaro oo ku tuuga galay ki tuuga ya ma eray tuuga ka jira war tuuga ka jira ma arti ari guruga tuuga ma ka jiro tuugiya wali ba eray hadii gol kun tuuga ka jirna ana shaatiga ay gaadihe أنا waxaan maqli jiray ilaa tuugna waa tuug afminshaarna waa tuug war sheeko kale oo cajiib ah waxa soo qoray nin la yiraahdo Cabdulaahi Haynoosh wuxuuna yiri maalin jimcaha qadiibka ayaa masaajidka soo daahay kadibna waxa minbarka fuulay askari taraafika khudbadan ayuuna akhriyay amma bacdu walaalayaal cusboonaysiista leerarka toobada xirta suunka alla ka cabsiga yareeya xawaaraha macsida iska hubiya taayarada niyadda nadiifiya matoorka qalbiga raaca leerarka quraanka ku socda jidka xaqa ogaada waxa idinka horeeya bar control oo aad u adag isjira qofkiini qalad gala oo seedka ka leexda waa jahannamo waaqimi salaa war jimcaas qadiibka uu soo daa waa fiicneed sababtoo af carabi uu raba inuu wax ugu sheego dadka ninkaan isaga wuxuu yaqaan lalana fahmayo dadka wax ugu sheegay si saxana waa ugu sheegay haddana anu waa idin sheegayaa iska hagaajiya leerarka qalbiga yaa naftirkaagu matoorka iska nadiifa fadhi ku dirin iyo xan waa la iska dhaafay warwar ma haysaana shabeellada hoose shabaab wax kaloo la dirira waayaa ku diriraa la yiri dagaalkuna waxuu ka bilowdaa la yiri waxay karbaashaan markay waayeen bay ayagii iskarbaasheen baa la yiri siday wax u karbaashayeen karbaashkii waxay ku keeneen baa la yiri xaaskii amiirka mabaati ay xirtay amiirkiina intaad u caroodu ku xaaskiisa karbaashay xabad ku karbaashay hadda xabadii xalal la isku karbaashay ilaa saaka la isku karbaashayaa la yiri oo amiirku intaasoo kaasha hadda u heesto ninka lacag lahow koy ahee la yiri ma iska yimaado doorashada ka soo qayb galo arooda amiirka waxaa ka maqan dumarka dhammoo la garbaashaayo inay rag xaasaskiis yihiin oo tiisa la mid yihiin hinda ana waa yaaban yaqoowne siigaala biimaal idib laba buush la ayaad isku xabadeey masaakiinta joogta xabad ee ka badbaadiye
war maanta waxaa la yidhi gaari caasiyoo dad 20 qof gaarayo rayadii saaran yihiin oo meesha basra la yidhaa marayey oo dhinaca balcad u socday ayaa miina la kacday dadkii saaraana waa ku halaagmeenaa la yidhi hadda kuwii dhagartaas u dhigay xisaabaa sugaysa annaguna waxaan ku ducaynaynaa in ilaahay si degdega u waafajiyo aryaanimaan shantaadu kaa reebin sharci kaama reebaa la yidhi shabaabna miina dhaafi maayaan habaaramowna laga hoos maahina dadka hallayska dhacsho abdulo waliba horlangaray hamasho absuu habaarna taagdaruu war aniga ciidanka dawladdu waxaan kula yaabay nimanka way taataabanayaan tallaabana kama qaadayaan war macluulu albaabka xabsigo aad gargaraacayso maa ka joogta intaan lagaa furin araada nimaan liska celinaynin in la cariyo ma aha sababtoo shacabkay ka caarsanayin waryaada kalemaanay waxbaa soo cartamayo caashaqu sidii hore maanta waa ka culus yahay cigaalayda boqorrada ceesha soo burqanayo coodka eebba siiyo iscollaysanaayiyo carabtuna israa'iil waa ka cabsanaysaa caashaqu sidii hore maanta waa ka culus yahay ciddannada qudheedana hurdo waa ka caagto kursiyaa lagu cadaabo calmashada kalgacalkiyo calafdoonka nolosha iscidhiirinaayo caashaqu sidii hore maanta waa ka culus yahay arya axmed waxaad la calaacale ma waadan maqal ma og tahay curyaankaba cagalooma waayine caynkaa wax loo yidhi kuwa caraara yeeladan inay ku cimri qaataan caashaqa habaayicin carabtanoo casiirkiyo inay carabka dhuuqaan caqli dhaafsan ma laho caashaqu sidii hore maanta waa ka culus yahay war waa yaabanahay nimanka mascuudiya laga soo tarxili yaa u sheega yaa ogeysiiya alla yaa u sheega aroo saaxiibkay cabdulla waxaa kalood kilowdeen caashaqaa runtaaridaygu wareeheyo aha sida roon rabbaa oge wale aniga lay raraye xoog badanida xaadisu daalihee ninkii lacag lahow koy ma waadan maqlin warwar ma haysaana wallaweynay idinkunbaa isku dhegane golihii wakiilada somalilan waxay ansixiyeen heerkii doorashooyinka markaa annagu doorasho cadaaliyan qabsannaaye sidiina marmallo kuma jirno war maanta war ma haysaana waxaa lagu dhawaaqay warbaahintii dawladdu inay bablig tahay oo mucaarad iyo muxaafidba u dhaxayso cabdiraxmaan cabdishakuur iyo sheekh shariif ma ka hadli karaan haa laakiin salaad cali jali iyo sheekh cali wajihiisa uga dambaynaya war adeera ku dayashada iska dhaafa arrinta somalilan baa 7 ka hor ku dhawaaqdee war haddeerba cid kale kuma dhawaaqina wasiir maareeyaa ku dhawaaqay wasiir maareegee haliinkoo idaacadda dawladda kalamaanha ku dhii koreehe wir war warbaahinta dawladda hadday mucaarad iyo muxaafid u dhaxayso kalamaan waa laga daynayaa ee hasugu weyn war sida la sheegay haddii warbaahinta dawladda mucaarad iyo muxaafid u dhaxayso haddoodtiisa farmaajo iyo xasan sheekh war haddii la doodsiinayo labadaas midkoodna waa inuusan istaaf soo kaxaysan araada sanbadalsha ma ka hadli karaa tiifiga dawladda baafin gudoomiyii guddiga doorashooyinka xalimare ayaa arkay baafin wasiir slow yaa arkay baafin markaad leedahay maxaa u baafinaysaan mas-uuliyiinta qarafaanba yaa arkay baafin faara cabdiqaadir damaneedun ay aragi baafin sheekh shariif yaa arkay yaantan baafin xeef yaa arkay baafin siilaanyo laguma weydiin adigaba inta idinku war mahasiine axmed madow maanta kismaaninka khudbeey maxasheega makaseesinge ciidamada dawladda ciidan dawladdaha maloo adeeg sidaas dhahay danna gaar kaliya lasoo tababartaa aan magac loogu baxsadaa gadan wax ii qabsadi islaayo kale waasday war hadeed kuma darine war hay-adii caalamiga waxay madaxweyne farmaajo ku eedeeyeen sharciga saxaafadda uu saxiixay inuu caburin yahay markuu saxaafadda ku sheegay shabaabna waa xadgudbay dheenaha ka noqdo warkaas araada madaxweynaha waagii hore saxaafadda waa jeclaa jire maxaa daari maanta farmaajo nin fiican waaye cilladda xafiiska waaye warna miyausan walmooshiidina gabaar deebkarafadii muraad yaydeeri war hadduu jeclaanayo hoo macal warbaahintii dawladdu yidhi waa free war ma kaambeynkaa jeclaysiiyey war dhagaxdii magaalada ma laga qaaday aro haddii la qaado intee la geynaane war jidaadku waa furan yihiin ammaanka ka qayb qaata kursigaasan caashaqae madaxweyne koli dhahaye waxaan ahay madaxweynaha dawladda Jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dawladda Galmudug anigu waxaan ahay madaxweynaha dawladda Puntland
anna waxaan ahay madaxweynaha hirshabeelle aniguna waxaan ahaa madaxweynaha khaatuma state waxaan ahay madaxweynaha dowladda banaadir state war ana waliba ahaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ay ii haysid kore waana ii lagobsid kore anna waxaan ahay madaxweynaha dowladda Everland adeer aabba waa xanuunsan yahay allaha caafiyo dhakhtar baan rabaa inaan u wada aabbe allaha u naxariisto adeer aabba ma dhimana wuu jiran yahay baan ku idhi allaha u naxariistaan anna ku yidhi maxaa ka wadaa dhakhtar sawkii aragtidiisu ay lacagta badan ahayd maaha ee haddana faylka dheer loo gelayey sow maaha nacam ee adigoo daalay markaad la kulanto isagoon ku waraysanin oo aan xogtaadaba ogaanin ilayn boqolaal kale ayuu qaabili lahaaye waana dhakhtarkii cudurrada guud oon caalamka kale ka jirine 10 dhiig 10 dheecaan kumbuyuutar raajo iskaan iyo wax kaloo la sheegi karin kuu dirayay sow maaha allayleh markuu intaad haysatayba kaa wada xanyuubiyo haddana dawo farmashigiisa taalla lana tayaatan suuqa taalla kana qaadisan kuu sii qorayey maaha waa asiibtay haddaba walaalkay allah u naxariisto adeer waa yaabanahaye dhakhaatiirtu ma sidaas bay u wada naxariis daran yihiin waa kuweenna oo keliya ma xitaa kuwa ajinibta noo yimid iyagaa keenayo waa isku mid ay ku mahmaadaa feeri ganjeelo foorgad muran fariis qabqabsi faydhowrka maskaxda walla dhagaxdaas haddii la qaado warshad dhan baa xirmaysa dhagxaanta fasax bay galeen fasax war qoolta afkood jirta way soo gashaa waan maa qabsanay warda noo kala kaynaya meesha waryaada kala laasaa joojiyo xishood kaliib bakarafa kaliib ayaw wardil war adiga waryaayga fuji qaar sagaarkayga fuji war kada waryaada naga tage kii lacag lahow koy daawade si aanad noola meeraysan subscribe sidoo kale si aanan anaguna kula meeraysan like-ta ha nagala masuugin ku soo dhawow YouTube channelkeena